aan ku bilowna filimka lagu magacaabo Karala History kaasoo xambaarsan barabaganda lagu xambaareynayo islaamka. Filimkan oo lagu fikirayo daawashadiisa in ay yaraanayso ayaa soo xareeyay lacag aan macquul ahayn. Toddobaadkiisii afraad uu saaran yahay tiyaatarada ayuu soo xareeyay lacag dhan 206 karoor. Shabakadda Box Office ee India waxay leedahay filimkani wuxuu qarash ahaan soo xareyn doonaa 200 ilaa 220 karoor. Filimkan oo barabagandada xambaarsan ayaa Bombay iyo hareerada ka soo xareeyay lacag aad u fara badan taasoo dhan 80 karoor. sidoo kale gobolka Mysore wuxuu ka soo xareeyay lacag 12 karoor ah. waxa uu waalid noqotay filim iska yar oo daciif loo maleynayay in lacag intaas leeg oo ka soo xareeyay magaalada Bombay gudaheeda. taas waxay ka dhigan tahay filimkan barabagandada ah reer Bombay inay garab istaageen waliba si xawli ah. filimkan Karala History markii la sameeyay lagu fikirin 200 karoor iyo wax dhow inuu gaari doono. filimkan in si wali ah loo daawadana waxa ka dambeeyay siyaasadda India oo isdiidan taasoo sababtay filimkan in uu noqdo mid xitaa dadka dhan ay wada daawadaan. sidoo kale filimkan waxa cambaarayay waliba aad uga hadlay aktarka ruucadaaga ee muslimka ah Nasruddin Shah kaasoo Soomaalida u taqaano Jalwa. wuxuu sheegay filimkan inuu cambaareynayo gabdhaha muslimiinta ah taasoo sababaysa in India inteeda kale ay ku faraxsanaato. filimkan qisaan wuxuu cambaarsan yahay gabdho ku nool magaalada Bombay ee muslimiin ah in ay aadi doonaan dhanka ISIS kadibna ay isqarxin doonaan ilaa kuwii xijaabka dhigo iska soo haray maahane. xitaa Nasruddin Shah waxa uu sheegay madaxda muslimiinta marka doorashada u istaagayaan in aysan cadeyn karin wadanka waxa ay ku maamulayaan taasina ay noqotay mid u diiday in ay noqdaan madaxweynayaal. kuwa kale ay hinduugan asnaamtooda meesha ay keensanayaan waliba ayagoo caabudaya ay ku faraxsan yihiin waxay doonaan ay meesha ka sheegayaan. ninka muslimka hadii uu istaago 3 mar Allahu Akbar oo ku soo celina macquul ay tahay in la xiraba. ugu dambeyn eeda wuxuu dusha ka saaray dawladda India taasoo uu ku sheegay si xaq ah inaan wax kasta u maamuleynin balse wax kasta lagu gudbi doono ugu dambeyntii. dhanka ninka lagu magacaabo Kamal Khan ee loo yaqaan KRK markan wuxuu kabaha u soo gistay Shah Rukh Khan filimkiisa Jawan. ninkan waa falanqeeyaha ugu weyn wadanka India ee filmaanta. Shah Rukh Khan bataan markii uu soo baxay aad ayuu u amaanay adduun weynaha inta badan asaga ku xiranna filimkaasi asaga ayaa ka gaday balse wuxuu ku dhagan yahay filimka lagu magacaabo Jawan kaasoo uu leeyahay filim flop hadii uu flop noqon waayo xitaa Hindi waan iskaga guurayaan wadan ayaan u guuri doonaa. xitaa wuxuu sheegay filimkan qasiis inuu ku qanacsaneen SRK oo loo yaqaan Shah Rukh Khan. sidaas darteed wuxuu leeyahay filimkan haleega baajay 2 June hadii la saaro waxaan ugu yeeray daawashada inay ku cajisi doonaan filimkaasi. wuxuu dhahay SRK aniga ma nacbanin laakiin filimka Jawan aniga aan arkay filimkaasi maana film socon doono. KRK qofka daba dhigto oo dhamaatay gabi ahaan Hinditas ay aaminsan yihiin balse wuxuu sheegay filimkan inuu flop yahay hadii uu flop noqon waayana meel haleega qoro Hindi xitaa waan ka guuri doonaa. ninkan waa xariif bataan markii uu kacsanaa Shah Rukh Khan aad ayuu garab istaagay wuuna taageeri jiray laakiin dartan wuxuu leeyahay filimkani wuu ku fashilmi doonaa Shah Rukh Khan waana film flop ah. sidoo kale ciwaanadeena waxaa ka mid ah Fardiqan Isbaag waa uu soo laabtay abaalmarinta iPhone 2023 ayuu ka qayb qaatay wuxuuna ka mid ahaa martida looga yeero Dubai. warbaahintan wuxuu u sheegay inuu dib ugu soo laaban doono filmaanta waliba uu diyaarsan yahay filimkii uu ku soo laaban lahaa magaciisa la dhaho Fast. Fardiqan wuxuu sheegay filimkan inuu ku saabsan yahay sheeko socon doonta 24 saac. filimkaas wuxuu sheegay inuu ku matala shakhsi afduubanaya baahiloodka wiilkiisa baahiloodka cunugaas dhalan waa Dashmuuq. filimkan wuxuu isku qaban doonaa Dashmuuq iyo Fardiqan. filimkan waqtiga daawanaya ku rabay la shaacan doona balse waxa loo badan in laga daawan doono OTT-ga. Fardiqan film oo leeyahay la saaray tiyaatarka waxa ugu dambeysay 2010 markaas wixii ka dambeeyay wuxuu ka cajisay film inuu soo saaro wuxuu noqday nin isdeeyay waliba aad iyo aad u cayilay laakiin hadda juhdi fara badan oo isoo geliyay kadib wuxuu diyaar u soo noqday inuu ku soo laabto saaxadda filmada maadaama xirfadiisii hore ay ahayd. filimka ugu dambeeyay oo sameeyay waxa la dulha Melga wuxuu la sameeyay Shushmita. Fardiqan waxaan ku xusuustaa filimka laadarka oo ka ahaan jiray Fida asaga iyo Shahid Kapoor iyo Kareena Kapoor ay sameeyeen. haddana waxaan rajaynayaa soo laabasho wacan adigna fikirkaaga ka soo dhiiba ma u xiistay Fardiqan in uu sameeyo filmada waliba uu ku soo laaban doono. haddii aan sii wadno sheekooyin karana Amir Khan wuxuu garabka waayay saaxiibkiisii hore ee Salman Khan kaasoo yaraantooda ilaa hadda film ay sameeyeen jireen. garabkaasi uu ka waayay wuxuu ka heli doonaa Ranbir Kapoor wiilka dhalinyarada ah. sheekadan waxay qosaysaa filimka lagu magacaabo Champions. Amir Khan bilow sanadkan wuxuu la kulmay saaxiibkiisa Salman Khan asagoo u sheegay inuu soo iibsaday filimka lagu magacaabo Champions oo rab inuu u sameeyo maadaama asaga ay haystaan film barabareen labadan sano waxba filan ah oo sameyn karin. Salman Khan wuxuu codsaday waqti in la siiyo balse ugu dambeyntii uu iska daayay filimkaas inuu sameeyo maadaama uu yahay sports dramas. dad waayeelaha madaxan loogu jiro ayaa la tababaraya ugu dambeyn wax lagu soo qaadan doona Championka. Salman Khan wuxuu sheekay noocan DSMS aan lagaga baran commercial aanan ahayn ama hadhow ku fashalantaa. mashruucan waxa lagu dhawaaqay bishii Maarso markii ay Amir Khan dhalashadiisa balse Salman Khan ay ka cudurdaatay filimkaasi inuu sameeyo. filimka Amir Khan soo iibsaday asagana maalgelinayo. ugu dambeyn warbaahintu waxay sheegayaan Amir Khan in loo kulmay Ranbir Kapoor oo u bandhigay filimkaani asagana oo ka aqbal oo dhahay aniga ayaa ku sameyn doona wax dhibaato ma lahan. haddana Amir Khan wuxuu diyaarinay filimkaasi jadwalkii lagu duubi lahaa email loogu talagalay. sidaas darteed warbaahinta Hindi waxa ay leeyihiin Amir Khan saaxiibkiisa Salman Khan garab uu ka waayay balse Ranbir Kapoor ayaa siiyay. dhanka kalena Allu Arjun iyo Yash Fartan Johan ayaa isku haysta film aad u weyn kaasoo uu leeyahay ninka lagu magacaabo Adli ee maalgelin doonta shirkadda Sun Pictures ee caanka ah. big film markii la dhahan waan ka warqabnaa waa mashruuc aad u weyn kaasoo ku kicid karo 200 ilaa 300 oo karoor.
waana film action dhammaystiran ah inaba aan caadi ahayn. Yaash wuxuu isku haleynayaa filmkii KGF ee u suurtagalay inuu si qurux badan ugu xarakeeyo. Allu Arjun Bashbaahi wuxuu isku haleynayaa aktarnimadiisa caanka ee filmada badan oo actionka uu soo bandhigay. Labadoodu waxay isku haystaa filmkaasi qofkii sameyn lahaa. Atli nink lagu magacaabo hadda wili kala ma dooran labada aktar madkii uu sameyn lahaa. Wuxuu ku mashquulsanaa filmkii Jawan ee Shawruqan uu sameynayay kaasoo hadda uu dhameystiray. Wuxuuna rabaa film kale inuu u sameeyo From Dhaban kaasoo qaadanaya 4 bilood. Laakiin filmkan sheeko aan way u dhameystiran tahay waan action aan caadi ahayn. Wili ma kala dooranin. Adiga isleedahay wuu dooran karaa wuuna ku fiican yahay. Fikirkaaga waa inoo muhiim. teeda kale aan ku raaciyo Atli filmaanta oo sameeyo dhan waa filmaan xarakaad iyo action iyo fear ay ka buuxdo. Waa film big movies ah. weliba waxa maalgelinaya shirkadda caanka ee Sun Pictures. marka filmkaasi yaa u qalma fikirkaaga waa muhiim labada aktar kala ma dhacaan waa saa u jeedaan mahadsanidin barnaamijkeen maanta inta ay kusoo gabagabeynayna insha Allah waa inoo maalin kale iyo barnaamij cusub mahadsanidin channelka diyaad ku soo tahayna subscribe-ka ka iloobin gambalka furo maalin kasta wixii soo dhigno ku soo dhici doonaan